بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada barnaamijkeena ciyaaraha ee maanta caawad ogtiin champion league jiro xalana waxa soo baxay afar koox caawana waxa la sugaa iyagana in afar koox kale soo baxaan sideed dhamaadkan isku soo biratunto kulamadaas oo dhan ayaan rabnaa inaan falanqeyno kulanka ugu weyn ee labada sugaya caawo waa kulanka Real Madrid iyo Atletico Madrid kulanka wax walba ka dhici karo waayo hal eber ka bilaabanaysa kulankan markaan aragno wixii ka dhaco kulamadii xalada dul marno baati aan ogeyn xalay Liverpool in la soo reebay gurigeda lagu reebay waayo lugta hore ku soo badisay hal eber milid ku halay karo wax walay karama adigoo hal laga dhaliyo daafac laga galo extra lagu daro kitaab bacdin gorgora asir gartaan inta ka badan gorgorna waa taqaanay waa nasiib marka waan arki doonaa Arsenal hore u soo badisay oo caawo say la tahay academia marka waxay safaysaa kadleedeeda Aston Villa boqolkiiba 90 ciidana sidii dhabaadkii way joogtaa inkastoo wax walba ka dhici karaan oo laba eber hadii lagu qabto extra lagu dari karo kubadan sida adigu Griezmann si kale u dhici karta mararka qaar Atletico Madrid iyo Real Madrid idina la eber ka bilaabanay Real waxaa looga baahan yahay kubadda inay disho waayo hadday Atletico daafaca ka gala maxay ahayd sheek hal gool waa laga helay si walba mid kale corner laga helay ama kala daafacyada ay qabtaan amina adiga iska dhalisaa oo qasba mararka qaar marka Real caawa waxaa looga fadhiyaa ciyaarta kan bi horebo in gool la imaado Real de gool la imaado saas waxay ku noqonaysaa laba eber markaas oo kale daafac oo kale fadhiisan kartaa laakiin haddii Real caawa daafac ku soo gasho waa loo yaabaa Real Madrid caawa waa loo yaabaa iyadoo weeraryahanada ugu fiican Yurub ay haysato waxaa loo baahan yahay caawa ciyaarta inay disho ee meel saarta loo baahan yahay haddii meel saarin caawo waxba lama hayo Atletico waa naqaanaa gurigeeda dibaaxay ku tahay ninka la leeyahay Diego Simeone macallin inaba caadi ahayn oo dagaalamaya ciyaartoydiisana dagaalamaya haddana dadkan hal magaalo ka wada dhisan yihiin Real caawa anaga waa u baqa ee Arsenal ayaa ku fiican oo soo baxda maxay ahayd inay ku soo baxday Real Madrid ama inay ku soo baxday Atletico Madrid aniga waxaan leeyahay Arsenal in Real ku soo baxda oo fiican waayo Atletico hadda ka soo badisay hataa adigoo baabaasan adigoo dhaawacyo ku hareeyeen adigoo daalan kala soo hareysin waayo juhdi adaga isgelinaysa tii xal ku dhacday maxay Liverpool beenar leeyahay caawa ciyaaraas wax walba ka dhici karo caawa aniga oo Real Madrid yaa kala ku soo haray caawa Borussia Dortmund guriga leeyahay tagay caawa Borussia waxaan leeyahay aniga ku soo horay asiga Borussia caawo hadday soo badisay Barcelona ku dhacay kulanka Borussia iyo Lille waxaan leeyahay Borussia soo adkaanayso Borussia de soo adkaatana waxay ku dhacay Barcelona xalman ogeynay Inter iyo Bayern isku dhaceen caawana waxaa la wada sugaa maxay ahayd sheeg inay soo baxdo Aston Villa marka Braga si ugu dhacdo maxay ahayd sheeg si ugu dhacdo PSG marka kulamadan xiisa badan ay leeyihiin tabiiq ma xiisa badan oo mara wax walba ka dhici karo sanadka Arsenal miya sanadka PSG miya aniga waxaan leeyahay sanadka ama Arsenal ama PSG ama Barcelona saddexda mid qaadayso waayo labada horma buu qaadin Barcelona 15kii ugu dambeysay in Champions League qaadan 9 sano 10 sano qaadan Barcelona Champions League waayo 2015kii ugu dambeysay Juventus ka qaadaysa yaa ku soo haray Arsenal abadkeedana ma qaadin oo hal finaal ay imaaday PSG na hal finaal ay imaaday aniga labadooda uga baqay labadooda way isku dhacayaan markii labadooda tii soo baxdo hadday Real ay ka soo adkaato Arsenal ama Atletico ka soo adkaato ay soo finaal soo imaadaan labadooda tii soo baxdo inay qaadaysan u maleynaa waayo labadooda xisantka hal bukusnimo ku wada jiraan hal meel way ka duulayaan yaa kala ku soo haray Aston Villa in la dhalisada maaha iidane caawa hadii soo baxdo oo waliba wadii ku soo baxdo waxaan u maleynaa iidana naftirkeeda PSG hadii meel soo saarto inuu wax wado waayo Aston Villa hore hataa hadda kore u qaaday Champions League waxaan waa nasiib
wuxuu ilaahay ku calfaya guuladeeda waay adoo koox yaraa qaaday adoo koox weynaa qaaday adoo fiicnaa lagaa badinaa adoo xunaha badinee adiga waxa waaye sidii ilaahay adiga wax walba u talagalay u dhacayaan laakiin koox walba waxaa lagu miisaamaa inay tahay koox tartami karto ciyaartoy tayo la joogaan nasiibkana caawinaya waayo adigoon ciyaartoy haysanin nasiibna haddaa kaashato waxa waaye wixii ilaahay guli waay laakiin muhiimadda waxay tahay dadka maxaa ka gudmi kara waay adigoo xun hadda kor Chelsea qaaday Bayern Munich ay ka qaaday iyadoo xun ay qaaday waayo nasiibana maxay sheegay Chelsea saacidayay labada Champions League oo Chelsea qaaday labada nasiib ku qaaday marka muhiimadda waxay tahay maxaa ka dhici kara caawa Arsenal gurigeeda ugu ciyaara caawa Arsenal iyadana guul u rajeynaa inkastoo hore uu soo baxay todobo iyo ever inay ku badi karin maxay PSG inkastoo wax walba ay mucjise ay ka dhici karaan haddana misdaay Arsenal todobo gool laga dhalinayo Maxamed dhalinayso taas amar oo wax way anaga naga weyn waay waxa kale oo ku soo haray kulanka kale waxay go maxay ahayd sheeg oo lagu ciyaaray garoonka Aston Villa Club Brugge hadinan maxay ahayd kambi horeba in kala dirin waa u baqaana tirkeeda waay Club Brugge wax waa misalan Atlanta soo reebtay Aston Villa waxa waaye lugta hore saddex ciyaar ku soo badasay gurigeeda laba ewer ciyaarta iska bilaaban laba ewer idoo ka bilaabanayso hadii Aston Villa kambi hore ba ama gool hal gool hadii la imaanin isdhaada waxa waaye maxay ahayd sida ciyaarta ku am daafac ay ku bilaabato waxa waaye waa loo baqaa ciyaartana waxa waaye cidii gool ku hormarto ee rajada dhankiisa maraysa mar walba waayo marka gool dhaliso rajadaada way fiicnaanaysaa horumaraa sameynay wax waaye niidaada way fiicnaanaysaa waxaad isku dayaysaa inaad guulaysato waayo laakiin haddaadan gool la imaanin waxa waaye adig lagugu bilaabo rajadaada waxa waaye hoos sii aadaysaa waa tacaawa haysato kala waaye yaa kaloo kuu soo haray Borussia hale galay sawqadii hore caabo wax walba ku dhici kara Borussia Dortmund gurigeeda ku ciyaaraysa gurigeeda ku ciyaaraysa leel hadii gool la hormarto Borussia idana waxa waaye sidaas inay kugu diinaysan u maleynaa laakiin Barcelona waxa u fiican in uu soo baxdo liin waayo Borussia khataata waaye sawqadii hore waxa waaye Borussia maxay ahayd sheeg waa teereet PSG waxa soo reebay waxay soo reebtay Barcelona marka inay liin u soo baxdo u fiican Barcelona aniga ahaanteeda waay marka waa arka doonaa ciyaarahan Champions League wixii ka dhaco kulankan Arsenal iyo maxay ahayd iyo PSG Eindhoven waxaan isleeyahay kulankaas caawa Arsenal la badanayso 3-1 ay ku badanay kulankan kale oo weyn oo la wada sugaareen Madrid iyo maxay ahayd Atletico Madrid Atletico caawa waxaa laga rabaa kambi hore in Real gool ka dhaliso kambi hore hadaysan Real gool ka dhalinin naftirkeeda waa loo yaabaa waayo marka daafac laga galo oo kambi horena aadan waxba dhalinin adina gool uu leeyahay kambi dambe wax waayay waxa laga yaabaa in aad ugu soo aado adiga gool la soo shaqado hadii aad gool laga soo aado gool laga helona wax waayay rajadaada ceelay ku sii dhacay marka waxa loo baahan yahay kambi hore bayid naftirkeeda inay gool raasato Simone oo gool ka helana wax waayay daaficiisu xirana ma todan control attack loo ku gaadaa korno ku gaadaa wax waayay hamri soo wada baxay iyaga hamrna wax way wada laabtaan marka Real caaw waxa isla leeyahay naftirkeeda inay gool ku hormarta u fiican Real hadii gool laga dhaliyo ana ahaanteeda Real bay ku diis waayo shakhsiyaantii marka ka hadla waayo hal iyo eber leh ciyaarta tii xalay Liverpool disho kala waay Liverpool hal iyo eber lahayd halkii laga dhaliyay waa loogu dhimay Liverpool kala lagu sii cunay marka Atletico gool ka heshay gool kalena waxa waaye iska imaan karaa marka Real caaw waxa laga rabaa iyada naftirkeeda inay gool la imaado hadayna gool la imaanin waxa waaye iyada naftirkeeda loo yaabaa yaa kaloo ku soo haray kuwa kale maxay ahayd sheeg oo kala Bragana waati aan ka soo hadal loo aan dhaanay kala Bragana naftirkeeda waa inay gool qoomata caawo afartanaad oo ciyaari jabo naadigi gool ku hormar intaan Arsenal ka ahayn Arsenal waxa waaye todoba gool soo badisay waxa waaye barkinteeda dheeraysanay laakiin saddexda kale naadigi gool ku hormarto natiijada 90% dhankeeda noqonay waxa taas u leeyahay wax kala ma haniyad Imran ka qaaday niyad Imran hadda ka qaado natiijadeedu waxay noqonaysaa 90% noqonay inkastoo wax walba ka dhici kara waxaan kubadda waxa waaye caadi madow waaye marka waxaan leeyahay caabo dhafar kale wax waati xalo kale inay dhacdo marjeynay hadda ka ahayn Atletico Madrid iyo Real Madrid kuwa kulmadooda adag kuwa wax soo dhafay ma jiraba
labada sadiciyo wax waa caawa kala baxaan anagana wax waa nasanaynaa laakiin sida xaloo kale hadda isugu dhagaan hal eber lagu qabto isugu dhameeyo gorgor la sala aado markaas waxay noqonaysaa maxay ahayd sheeg in 8 saac 7 saac wax waa 8 saac dhimo wax waa la kala tago waarka doona insha Allah biidnillah insha Allah ninka waxaan ka rajeynayaa inaan ugu caawisaa subscribe-ka like share comment iyo nagu soo biira wixii dhiirigelin wixii maxay ahayd sheeg oo رأيي نقول وذا كومنتيا هذا ما ستي والله الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جنال كان وجنال كينا هذيك واحد وياي واحد كعبة هنا أنا نقرب يستكتان هذا ما ستين دابشديني دقيسينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.